سلاميا سترك يا كو إلالية سعد القرحون يو سناني عدالة بان سعد القرحون يو سناني عدالة بان أما وذا سوغيناي سلديقاقو وشرفي سهانكاقو وقولي سعدالكاقو ونبدي سفركاقو وقيري يا سماد برواقادي صدوو مدحوينه هنو صدوو مدحوينه هنو صدوو ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي adigay ku sugayaano ku sacaabatumayane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي adigay ku sugayaano ku sacaabatumayane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow suuradaada waa lagu farxa samaa iyo gargaar wado suuradaada waa lagu farxa samaa iyo gargaar wado kiisamaha wade soomaalida mideeyayo kiisamaha wade soomaalida mideeyayo waa ku daba soconaaye suran quraanna wada mariyey soo majestihiyo soomaalidu u siman tahayow safarkaagu waa qayreye iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow سيدنا محمد ديار متين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين اخيارته شرفت بدن وزيرada waxaan ku yiraahdaa duubabka isimada culimada gabdhaha Soomaaliyeed sharafta badan ee warbaahinta aad iyo aad waxaan uga mahad celinaa aniga iyo ragga la socday sida sharafta leh qiimaha leh qadarinta leh ku soo dhaweeyay dabcan safar midka ugu fiican waa midka aadan baasaboorkaaga la soo bixin aadan baasaboorkaaga u baahnayn
aeroboorkan ka soo dhoofnay aeroboorkaan nimid xaafad inaan ka baxnayn xaafadii kala tagna un bay noo tahay waana quruxda qarannimadu ay leedahay qaranku markuu mid yahay quruxda uu leeyahay ka mid tahay wadamo badan oo xataa adduunyada aan hal qaran isku ahayna mararka qaarkood baasboorada iyo nidaamkaas ka dhaafo laakiin hadda anaga gurigeyna baan ka soo baxnay qolaan ka soo baxnay qol kale aan galnay laakiin akhyaar aanan ayaanta arkin inaan aragnan aan u baahnayn baan u nimid aad iyo aad waxaan ka uga mahad celinaa iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo reer Puntland oo idil waxaan uga mahad celinaa soo dhaweyntaas qiimaha badan waxaan rabaa markii anoo qadarinayo waqtigiina inuu aad iyo aad u kooban yahay dhowr waxyaabood inaan idin iraahdo marka koowaad waa mahadsantihiin marka labaad beeshaan iyo meelo kale waxaan u tagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxa aan u hayn inaan u sheegno shalayta kala ma hadli rabno laakiin waxaan kala hadli rabnaa maanta iyo berrito waxaa noo muuqda Soomaaliya sida ay taasi ka wanaagsan inay heli karto inay heshana wax oo culays badan oo lama arago lama maqal ma ah kaliya waxay u baahan tahay inay tashato ay arisanto oo waxa ay isku og tahay dad matali kara ay wax u dhiibato oo qaadi karo waxaan idhaahdaa meelaha markaan tago Soomaaliya waxa ka qalloocday qaranku waa ka dheeliyay laakiin waxa ka qalloocday waxa ugu weynaa siyaasadda tareenka motorkiisa hadduu ka halaabo qolalka oo dadku ay la raaco ama kuwa jiif loogu talagalay ha noqdaan ama kuwa VIP ha noqdaan ama kuwa caadi ha noqdaan macna ma yeeshaan haadaanu ka tuura dadka Soomaaliyeed markay businesska yihiin dadka kama tayayaro markay wax baranayaan adduunka kama liitaan markay dirirayaan xataa adduunka waa in badan oo kamid ah waa ka diracsan yihiin laakiin mushkiladu waxay ka timaadaa siyaasadda markii la soo gaaro amba waxa la yiraahdo shaqo wadareedka amba qaran isku wadka amba isla socashada meesha ay naga beeshaa meeshaas eedeeda bulshadu ma wada laha siyaasiga Soomaalida ha iskale muddo dheer oo daraasad ah iyo muddo dheer oo ka shaqeyn ah ka bacdi waxa ay soo baxay waxyaabo badan oo muhiim ah oo ku aad siyaasadda marka koobaad horta waxay ka eedahay ay ka bacdaa adduunyada dadka waa loo xulaaho siyaasadda soo dhacsi kaliya ma aha Kenya annagana la darisa sawir waxa jira afar ay ku sawiran yihiin madaxweynihii koobaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad iyo kan hadda joogo kii afraad oo carruur ah waa soo muuqdeen madaxda dad la dareemi kara ay ahayn maag iyo maalin ku soo bood amba habeen ku soo bood ma ahaan jir marka bulshadu waxa fiican dadkay soo fiiqato inay siyaasadda u soo hormaraan taas waa qodob waxa kale eedaa siyaasadda Soomaaliya oo loo baahan yahay inaan ka saxno waxa la yiraahdo dadka in inta la hiikiciyo waxaan socon karin loo sheego been loogu qoosho berrito ay socon weyso ama marka hore inay socotaan loogu talagalay oo siyaasigii la rabay in laga aamino midka ugu runta badan inuu yahay oo waayeel qaran inuu yahay oo wax isku wadid leh oo wax isku maslaxa ah laga aamino inuu been meeran yahay oo dad waaweyn ay yiraahdaan marka waxa la sheegay wixii waxba ka jiri maayaan taasna marka hore jidkii laga soo dhumaya ahaa dadka sidqiga diintu ay noo sheegtay in loo sheego dadka runtu way deeqdaa dadka Soomaalida in la marin habaabiyo oo hay'in been lagu sameeyo uma baahno inaan carruurteena shaqo u helno waxbarasho u helno caafimaad u helno isnabad gelino dhulkeena ku noolaan karno karaamo ku lahaano cinwaan ay noo ahaato dalkeena noo ahaado location Soomaaliya cunsurka Soomaaliga lagu yaqaano oo aan yeelano intaas oo idil waa waxaan heli karno waxyaabaha kale marka adduunyada ayna dheer tahay meelo badan oo kamid ay dheer yihiin hor u kaca iyo wadooyinka iyo waxyaabaha noocaas marka talada la isla helo wax kale waa la isla heli karaa Soomaaliya waxaan u wadnaa anaga tala in la isla helo la wada xaajayso xaaladda la isku ogaado garaadka Soomaalida la maalo intaan jeebkooda la maalin intaan dhiidkooda la maalin caqligooda la maalo waxa ka imaanaya la maalo waxa ay ogol yihiin oo iyaga ka soo fulo markaas la wada meel mariyo meelaha markaan tagno dadka wuxuu sheegidiisa kaliya ku mashquul laakiin waxaan ku mashquulnaa wax ka dhageysigooda niman wasiiraha fadhiyo amni bay ka soo shaqeeyaan warbaahin ay ka soo shaqeeyaan dalkan markii la joogo waxa loo baahan ama deegaankan markii la joogo in dadkaasi tajrubooyinka amba waayaaragnimadu waxay u lahaayeen laga dhageysto dad waxaa jira dhaqan soo jireen ah oo wax soo kala dhaqay in la dhageystay u baahan yihiin fariintan siyaasiyiintu ay diraan kaliya anagu ma wadno
dhageysi baa noo dheer hamigeennuna waa birito iyo maanta laakiin shayto waa wax laga yimid taariikhyahan baa iskale waxa kale dadka ku aadan waa inay wax ka bartaan taas markaan halkaas uga baxo qanaaco dhammaystiran oo bulshada soomaalida ku soo kordhaysa ayaa jirta oo ah sina inaan loo kala maarmayn cunsurka soomaaliga ahaa meel kastoo joogo aanu sina u kala maarmayn midna hadda dalkii iyo shuruucdii iyo ay isla leeyihiin midna xataa jinsigiiba isla leeyihiin oo ganacsigoodii waxooda waa isu gudbi karo dadka soomaalida ah intaasoo idil siyaasadda soomaaliya ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa inay ka warqabaan waxaan meeshaan u nimid arrimaha iyo arrimo kaloo fara badan waaye dadka waxaan u sheegaynaa in dhagaysigeenna oo ka badnaa doono dhihitaankeenna oo ka badnaa doono inaan u nimid inaan wax kororsanno waxna aan sheegno wax aan wadannana lala qiimeeyo dalkuna qiimeeyo dalka soomaaliya carabta waxay yidhaahdaan assalaalim tuqsal min fuuq jaranjarada koraa laga soo bilaabaa nadiifinteeda waayeelnimadu villa soomaaliya ka soo bilaabanaysa deganaanshaha iyo dal isku wadidda iyo dad isku haynta koray ka soo bilaabanaysa qorshaha qaangaarka iyo aragtida islaamka koray ka soo bilaabanaysa markaasay hoos soo degi kartaa laakiin waa marka hore waxaa la sheegaya wax dadkaaga aad ka soo ururisay ood ka soo dhageysatay inay noqdaan haddii adiguna maankaaga waxaa ku wadata aad la timaado dadkaaguna waadi kale ay saaran yihiin kala leexataa tihiin adiga unbaana leexanaya maahayna dadku way isla jirayaan isku hayn baa noo qoyndaysa dadka shaqooda baan u sheegnaa waxaan idhaahdaa soomaaliya waxaan ka damacsanaha horta kow meel lagu noolaan kara inay noqoto sida hadda aan nahay oo bay-adu ay tahay oo nabaddu ay tahay oo caafimaadka uu yahay oo shaqa la-aanta dhallinyaradu ay tahay si lagu noolaan kara ma aha guri kasto intaasoo dhallinyaro ah oo amba waxbarata amba aan waxbaran oo shaqa la-aan ha joogto qofkaan waxbaran xataa shaqu xaq u leeyahay qofkii waxbartay shaqu xaq u leeyahay haddii shaqa abuurkaas aan la samaynin oo dadka saas shaqo loo abuurin waxaa dhalinayso dalku inuu dadkiisa ceshan waayo dadkuna dalkooda ay joogi waayaan waana burbur meesha ugu horeysa oo dal la soo darisa marka soomaaliya meel lagu noolaan karo soomaaliya waxaad ka soo qaadaan libaaxyadii iyo maroodigii iyo ugaarti kale xuduudaheynay ka tallaabeen dadka kale ma tallaabin xuduudaha xayawaanka baa ka tallaabay meel libaax ku noolaan waayo oo mas ku noolaan waayo oo seedad ugu noolaana maska haddii geedka la jaray oo dhulka la baneeyay meelihii uu ku dhuuman jiray la waayo waa u baxa dadkuna way ka daba baxayaan midda labaad waxaan idhaahdaa soomaali annagu qarana oo jamhuuriyad ah aan dhaxalnay amba aan ku dhalanay haddana in badan oo kamid waa kala maqan yihiin oo soomaaliya way kala maqan yihiin dowladda inteeda kale in la isu doonay rabaa nabad la isku doono waxa la heli kara waay laakiin waayo aragnimo dulqaad sabar iyo waxa qaaliga aad raadinaysa waxaad ku bedelinaysa inay kaa dhaweysan yihiin ay u baahan tahay waxaan kaloo idhaahdaa barihii dambe soomaalida dhowr arrimood waxaa jirta ay kaga gedisnaayeen dunida qaaradda afrika waa midda koowaad iyagaa isdoonto markay midoobayeen waa midda labaad doorasho xur oo xalaalahay madaxweynayaashooda ku kala bedesheen markii ugu horeysa waa midda saddexaad waa dalka kaliya intii isdilay asagu isdoontay ee ismaslaxday ee carto iskugu tagay ee aan isdooranina yiri ee ku heshiiyey inay markaas isdoortaan oo doorashooyin gooreysan oo goobaysan oo la isla ogyahay oo la wada aqbalay natiijada marka hore la tartamo ku heshiiyey cidna qasabto ma aanay jirin wadamada qaarkood way kala adkaadaan markaasaa midkii adkaadaa wax maamulo annagu kalama adkaan qaarkood waa la qabsadaa gobonimo udiray ku midoobaan qaarkood adduun kalaa isu keeno oo mideeyo annagu waa ismaslaxan isla jooggaas baryahan dambe wax baa naga soo galay dib u heshiisiin iyo isu maslixaday rabtaa iyadana waa u taaganaa qodobka saddexaad bay noo tahay aanba sii kala darnaane oo koonfurta iyo muqdisho iyo inta ka gadaalaysaba ha u darnaadaane waxaa jira amni darro baahday oo dad soomaali ku abtirsanayo laakiin aragti soomaaliyed aan xambaarsanayn oo shabaab la yidhaahdo oo daacish la yidhaahdo ay dalka ka wadaan dirir iyo dad iska dhicin bay naga rabtaa kabacdina inta wadahadal bay naga rabtaa in lagu dhammaystiro iyadana amniga inaan ka shaqeynaan rabnaa wax laga qabto oo soomaali isku ogaato tan ugu dambaysa waxay tahay soomaalidu waxay haysato oo xoolaha ah waxay haysato diinta awalan waxay haysato xoolaha ah waxay haysato islahaanshaha ah waxay haysato macaadinta dhulka hoostiisa ugu jirta ah iyo midda guudka u saaran waxaa ka la mid ah diinta ka muhiimsan laakiin inta kale ka muhiimsan
meesha ay ku taalo madax badan oo waaweyn adduunka mid waxay yiraahdaan Soomaaliya meesha ku taalo markaan aragno waa masaylna waana loo soo muraadaa waana la soo raadiyaa baabul mandab iyo khaliij cadan aan ku sii jeednaa anaga wadooyinta Indiana waa saarana boqolkiiba 10 ganacsi ka badan ayaa maro waa meel 10 bahar ahmarka waxa la yiraahdaa 10 saldhig oo waaweyn oo adduunyada ilaaha ku taalo oo baysa wadooyinta Indiana ilaa isku fidiyaa qaaradda Afrika loo socdaa mustaqbalka meesha uu jira meel khayraad leh oo aan dhisnayn khayraadkeeda laga faa'iideeyo idana la dhiso dadkaasi wax u iibsan karaan loogu talagalay intaas marka degantahay oo aadan fahamsanayn amba aadan lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo qaangaar ah oo dantaada raadiso danta adduunka ka leeyahay barbar dhigtay mid adiga aad leedahay haddii aadan helin waa khasaaro weyn baa ka imaanaya dhankaas waxaan ka wadnaa inaan helno aan wadnaa siyaasad arrimo dibadeed oo qaangaar ah oo hamigeedu uu yahay nolosha muwaadinka Soomaaliyeed 1 2 3 10 waxa la xil saaray waxay tahay calanka buluuga ciid uu ka taagan yahay oo dawladda Soomaaliyeed dadka ku hoos nool in mudnaanta la siiyo oo dadka Soomaaliyeed ay helaan nolosha laa'iq u ah intaas markii la isku helo dhalinyaradu sida ay ka bixi kartaa waxbarasho hagaagsan la heli karaa caafimaad hagaagsan la heli karaa waxa ay ugu jecel yihiin shaqada la heli karaa shaqada waxay reebaysaa marka saboolnimada marka aad yaraysid ama wax badan aad ka qabatid waxa meesha ka baxo macluusha Soomaaliya waa meesha kaliya ee dunida gaajo loogu dhinto ciiduna ma gabin xuduudeennuna ma gabin laakiin taladaana gabtay tala xumida ayaa adduunyada waxay yiraahdaan dal faqiir iyo dal hodan ma jireen dal tala xun iyo dal aan tala xumeynaa jiro haday taladu toosane meesha waxba oolina aadan wax ka soo saari kara wadamo badan oo dunida kamida wabiyo ma laha bada waaweyn ma laha laakiin dhalinyaradooda maskaxda dhalinyaradooda ay waxay ka dhax sameeyeen wabiyo iyo bado iyo barwaaqo dunida wadamo aad u horumarsan oo xataa biyo cabaan dibadda ka keensan jira laakiin wiilashooda iyo gabdhahooda maskaxdooda ay si fiican uga faa'iideystaan waxa aan wadno arrimo noocaas ah waaye inta aan wadno waxaan rabnaa inaan wax ku kordhino waxay wax kula kordhinayaan aqliga Soomaaliyeed oo meel kasta joogo markaan dhageysano zoomka waa kula xiriirnaa telefoonka waa kula xiriirnaa waxaan qalaalada waa isdhaafsanaa dibad jooga Soomaaliya tayada badan laakiin waxa naga go'an qof kasta oo Soomaaliya oo aan fadhi ku arki karno inaan fadhiga ku aragno muddo aan yareyn baan joogi doonaa halkan haddii Ilaahay yiraahdo dadka goonigo khiyaarta waxaan rabnaa inay noo yimaadeen qaarna anaga u tagi doona fadhiyada ugu tagi doona maqaawiirta ah khudbad dheer ugu matalayn mana baqaa warka dheer aad iyo aad u mahadsantihiin saxaafadda qaybaha caafimaadka qabatabinaysan haddii Ilaahay yiraahdo dalkiina iyo mustaqbalkiina waa mushriq waa ifaya xogaaga telefoonada meesha laga saaray haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan ugu dambeyn iraahdo dadka Soomaalida waxa waswaasinay bariyaan meeshii Muqdisho ahayd madaxa ahayd ama mashaqo ka dhacda oo dhibaato ay ka timaada waxaan u soo jeednay aan ku dadaalaynaa waliina ku dadaalaynaa meel marin doonaa biidnillaahi in aan wax gacan ka hadalad meeshaas ka dhicin dabcan dawladda joogto dawladda hamiga iyo awoodda ugu weyn nabad iska leh laakiin iyadana waa ku boorinaa annaguna waa ka shaqeynaa dadkana aad waxay u xasuusayeen xilliyada adka ay soo mareen codna badeedaan dadka wax ugu sheegnaa cali khalifa Allah naxariista waxa uu dhihi jiray hogaamiye kooxeedada hada iyaguna waa dad Soomaaliyeed kulli Soomaalnimo kama marno oo waxba oo la isla gaari karaa hada dawladda hadda noo dhisan waa dawlad Soomaaliyeed markaan ugu baaqno oo ugu celcelino oo ugu baaqno oo ayna dardaraan oo dul qaadano ayna dardaraan oo dul qaadano marka dambe waxaan isleenahay iyagana sidoo isku xishoon karaan inaan ka xishoosiinaa rabnaa inaan ka sabar badinaa rabnaa inaan samaha uga badinaa rabnaa in sidii la ahaan jiray aan ku celinaa rabnaa oo doorashooyinka iyo soo socodka ah inaan waxyaabo badan oo ay ka xanaaqsan ka maslaxnaa rabnaa waxay nooga gardaran yihiin waa ugu dul qaadanaynaa waxay ku gar leeyihiin waa ku garab istaagaynaa maslaxad baan rabnaa inay ku dhamaato Soomaaliya madaxweynena way ka weyntaa baarlamaanna way ka weyntaa generation maalinkaas noolna way ka weyntaa taariikh dheer dad joogo dad imaan doona danahooda la ilaalinayo aad iyo aad u mahadsantihiin